وعيرك وربنيجي ايفون كشركة ابل ayaa qasaartay qiimo gaaraya 200 bilyan oo dollar laba maalmood gudahood. qiyaasaan lacagtaas waxaad ku iibsan kartaa dhammaan shirkadda McDonald's, laakiin waxaad isweydiinaysaa maxaa ku dhacay shirkadda Apple. laga yaabaa inaad xasuusataan wixii ku dhacay shirkaddii Hawaii 4 sano ka hor. dowladda Mareykanka ayaa mamnuucday shirkadda Hawaii inay isticmaasho adeegyada Google-ka sida Google Play Store-ka. ilaa maanta cidnaba ma iibsato taleefanada Hawaii Play Store la'aan. sidaas darteed Shiinaha ayaa markiisa aarsanaya. Shiinaha ayaa ka mamnuucay dhammaan shaqaalaha dowladda inay isticmaalaan taleefanada iyo dhammaan wax soo saarka shirkadda Apple. sababta ay labada dowladood Shiinaha iyo Mareykanka isku eedeynayaan ayaa ah inay isku adeegsanayaan shirkadaha Apple iyo Hawaii teknoolajiyadooda inay isu jaajoosaan labada dhinac. laakiin run ahaantii arrinta ayaa sidaas ka duwan. xaqiiqada ayaa ah in waddan walba uu rabo in shirkadiisa horumar gaarto halka shirkadda kale curyaamiyo. muuqaalo laga helayo dhanka Shiinaha ayaa cadeynayo in dukaamada shirkadda Apple albaabada isku dhacayaan halka shirkadda Hawaii meel la kala istaago aysan lahayn. dad badan oo Shiinees ah ayaa cabsi weyn ka qaba in taleefanadooda iPhone-ka mustaqbalka waxba u tari doonin haddii dowladda Shiinaha mamnuucdo dhammaan shirkadda Apple muwaadiniinteeda. shirkadda Apple ayaa halkaas ku weyn doonta suuqeedii labaad ee ugu weynaa adduunka. Faloogareeya si aysan ku dhaafin wararka noocan oo kale ah.